أنا مقاعي واسمسم محمد فارح إن ردوان ومحسنتها هرتو سؤاشاس ومد أن إسويدين مدن dadka intiisa badan ee caqliga u saaxiibka ah yani way ogyihiin waxa sababta aniga keentay inaan London joogo dadka kaleeta ee yani waxa weeyaan waxay isweydiiyaan maxay u hartay dadka intooda badan way igu eedeeyaan waxay dhahaan wadankii waa maysan ku laaban wadan kale iska dhiibtay qaxooti baa door biday laakiin xaqiiqatan waxa weeyaan waxa qalbigayga ku jira Allah ayaa garanaya sababta igu reebtay inaan London joogana farxad iyo jacayl aan u qabo ma ahayn London inaan joogo waxa ahayd badbaadinta noloshayda waxa ahayd badbaadinta mustaqbalkayga waxa ahayd badbaadinta magaca Soomaaliyeed waayo haddii aan wadankii ku laabto fursad dambe aan yani wadankii matala ciyaarihii ma helayo saboodka aan uga baahnay waayo labadii ciyaartooy aniga iga horeeyay calanka sideedoo kale u matalay Saamiye Allah u naxariistay iyo Cabdinaasir xaaladda ay ku sugan yihiin Saamiye Allah u naxariistay waa ay dhimatay Cabdinaasirna maanta waxa weeyaan maskaxdiisa ma joogto waxa ku dhacay mental issue ayaa ku dhacday haddana sida ay tahay cidna ma aysan sabood garaynin waxa ay mar walbana yani dadaalka u muujinayaan waxay ahaayeen inay horumar gaaraan calankii ciidan ay horumar gaarsiiyaan aniga waxaan joogaa hadda wadanan horumar ka gaari karo aan hobbigayga aan horumar ka gaari karo mustaqbalkayga aan ku samaysan karo aanan ka baqaynin qarax dhacay aanan ka baqaynin cid soo weerarays laakiin waxa weeye Soomaaliya waa la ogyahay amniga sida uu yahay dawlad xoogana ma jirto maanta wadankayga haduu dawlad leeyahay wallahi alcadiim inaan sakan xataa aanan joogin London Saamiya waxa la socotaa sidoo kale rabtay inay nolol hesho way geeriyootay marka aad soo xasuusato dareenkaaga soo yahay والله ودرن حنون ومد أني مر والبقلبي عن كجوين والله العظيم وايو سامية يعني وحين أهين ولا لا إلهي وحين أهين دد هل همي وذله وحين أهين دد هل فكرة دي أيك وذله حيسو سامية وحي هيد هو يذي أبي أيان دلين مهنا ولا شيء ده وكلا هاي إن وحاوي حنون ولينا قلبي والله إن سنكجو سامية وايو جيري دي ومد مر والبيتاجن waxaweye waxa calooshayda aan wali ka reebin oo isan kaga go'in geerideedana waxaweye marka qaar waxaan isweydiyaa dadku waxa Saamiye way dhimatay laakiin doontii ay saareed waxa dadku sheegaan inay ku dhinteen 8 qofood 8 qofood waxa la yiraahdaa 7 kamid waxay ahaayeen haween qofka kalena wuxuu ahaa rag waxa la cadeeyay in dadkii intiisa badan meydadkii la helay 8 qofood la helay laakiin meydkii Saamiye kuma jiro ani waxa xanuunka iyo mar walba igu reeba nabarka wuxuu yahay Saamiye hadii meydkeeda aad arki lahayd yani xoogay qalbigaagu way ka go'i lahayd wallahi lacadin waan ooya Saamiye marka aan soo xasuusta ama qalbigayga ugu soo dhacay waayo waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay yani qof walaaltinimo walaalo ilaahay aad ahaydeen hal meel wada joogteen yani hal fikrad aad wada lahaydeen hal mabda in ka dhaxeeyay yani aad meel inta wada fadhiisanteen aad weel wax ku wada cunteen Saamiye safarkii saddexaad ee aan baxo qaranka u baxo wuxuu ahaa safar Hamboole oo Djibouti aadayni safarka sabab ayay ka ahayd Saamiye inaan u baxo waayo koobihii aan ku bixi lahaa maalinta tartanka aan يعني توبرك أو قيب قاعدة لها ما ننتهى ما أنا الهيسنين سامي واحد قفك كوبه هذا إيسي بتأسي يعني سببه هذا إن جرون كقالوا أي هاد حتى رجال سيتها يارا أورد كما كده بحد مسؤول وكتير كائن ما يمان كده بحنين وجعلها أورد كإسبورتين وجعلها من كهر الدون إن شاء الله وحن جوجا ميلا مستقبل ونكسر نقص ميسن كرو ميلا مجا صوماليا دان مجا عوية لكرو وايو dadka waxa weeye wax isleeyin hadii wadankii ka tagtay waxa weeyaan wadankii marda ma mataleys hadaa xataa ay dhacdo in wadanka aan joogo aan matalo waxa weeye markii yani warbixinteeda laga waramayo waxa la leeyahay Zamzam oo ku dhalatay Soomaaliya ma la dhahay Zamzam oo British ku dhalatay ma la dhahay xaqiiqatan waxaad eegtaa Mo Farah markii BBC da ITV ay ka hadlayaan as a background case waxa la dhahaa Mo Farah originally from Somalia lama dhaho yani oo ku dhashay Britain lama dhaho
so that means still inuu Soomaali yahay anigana Soomaali ayaan nahay alxamdulillah meel walba aan tagana waxa weeye Soomaalinimadii ma iga hareyso waan ku faraxsanahay alxamdulillah Allah iga dhaliyo Soomaali run ahaantii marka afiirisa ciyaartoyda Soomaaliya inta badan madasha ciyaaryahanada Soomaaliya jooga iyo ciyaaryahanada adduunka ee wadamada kala gedisan ee caalamka matala waxa weeye farqiga u dhaxeeya waa ciyaaryahan wadan nabad jooga facility-giisa haysta caafimaadkiisa la kontroolayo cuntadii cunay la kontroolayo waxa weeye wax kurba iyo walwal aan haysanin problem family aan haysanin ee yani focuskiisa noloshiisa inay tahay inuu ka guul gaaro uu wax ka sameeyo ciyaaraha haday ahaa lahayd orodka kaleeto ama wax ciyaaryahan kaleeto ama basket hadheelo ama football hadheelo laakiin ciyaartoyda Soomaaliyeed caqabada haysata waxay tahay wadankii waa u burbursan yahay wadan markasoo qaraxyo ay dhacayaan marmarka qaar dadkii la dilayo hadana saameynta ay tahay ciyaartoyda niyad jab kuma sameyso wali waxay ku dhiiradaan inay hamigooda sii wadaan laakiin dhibaatada haysata waxay tahay ma helaan taageero xagga haday u baahnaa lahaayeen koobihii oo kaleeto haday ahaan lahayd dharkii oo kaleeto funaanadii ama suweeladii oo kaleeto garoonkii sidii oo kaleeto maahan garoon qabtiran oo dhammaystiran oo garoonkii loogu talagalo waayo traage ma lahan garoonku waa caro waa jaay haddii aa kuftidoo kaleeto waa dhaawacmaysaa waxay noqonaysaa ciyaartooyii hadduu dhaawac gaaro inuu ama bil uu tababarkii ka maqnaado ama waxa weeye 3 week 2 week uu ka maqnaado waana dareemi kartaa qof noloshaas tababar ku soo sameeynaya inuu heer ka gaaro waxa weeyaan caqabado badan ayaa haysto waxaana loo baahan yahay qasad ahaan yani gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii ciyaartooydeenan caalamka aan yani wax ula qaybsan lahayn waayo ciyaartooy kasta waxa hormariya dadkiisa run ahaantii ciyaartoyda Soomaaliyeed ee matariya qarankii ciidda Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa guul waxaana alla ka rajeynayaa insha Allah inay noqdaan kuwii magaceena kor u qaadi lahaay waayo waxa weeyaan ciyaartoy Soomaaliyeed ee qarankii matalay sidan anigu hore u soo matalay Maryan iyo Maxamedna waxaan leeyahay Allah inuu ku guuleeyo dadaalkiina insha Allah yaraanteedii xilliga aan yaray waan jeclaa inaan fanaan noqdo waayo xilliga aqli kaamil ma aan lahayn waxaan aad u jeclaay Hiba Nuuro Hiba Maxamed Cudoon Hiba Nuuro waxaan aad u jeclaa Allah u naxariistay Maxamed Saleebaan Tubaac iyo Allah u naxariistay Cumar Dhuule marka aan soo weynaaday mabda'aygu isbedelay dhulkaygiyo kilaygu dhalayeen ku dhaqaaq barto kado fimaye dankalon qalaad ku handafsan maaye inta aanan dhiman layka dhexgeliney inta aanan dhiman layka dhexgeliney dhar waxaan ku marayaa inaan ku dhintayoon ka dhiciya cadowge dhamac lagu shidwaa kii kugu dhashee dheef shisheeye ka jecel maanta waa dhabtiyo ka dhoofi maaye waan dhammaystiraya inta aanan dhiman layka dhexgeliney inta aanan dhiman layka dhexgeliney dhar waxaan ku marayaa inaan ku dhintayoon ka dhiciya cadowge